تسجيلات أمناء هوى تقدم ولأول مرة صوت مع صورة لتفسير القرآن الكريم للشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم كمين الله أفصنها ويذرون أزواجا وكتغها يا هوين وحالي يتربصن بأنفسهن وحي سوهيان بل النفط لسوهيان 4 أشهر أفر بلاد و10 يتونهن هوين عدد مارت هوين لقد انت عدد وانت إحداد نواتها ومدة وحوي ومدة أصيلة وانت قاعدة ونينك دنتي معناها بعدي انت وحوي وإحداد بالي هذا waxay ka fogaanaysaa macnaha waxyaabaha quruxda ah oo ziinada ah bay ka fogaanaysaa 4 bilood iyo 10 ka habeen waagi hore sanad bay ahayd sanadkii marka waa la nasakhay aayadan baa nasakhay aayada la nasakhayna waa soo socotaa isla suuradan bay ka mid tahay maqradan marka 4 bilood iyo 10 ka habeen markii dhamaadaan kadib ciidadii waa u dhamaatay ixdaadkiina waa ka baxday rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ma aha bir haween Allah ya akhrahu misan in qof dhintay yaani u ixdaado oo macnaha inay asay u qaado saddex bari ka badan biyo illa ala zawjin lil mahana biyo oo qaadayso ninka qabamooyo oo isagu qaadayso 4 ashhur و10 afar bilood iyo 10 habeen marka haweenka cidooyinku marka waa intaas haweenka laga dhintay waa 4 bilood iyo 10 habeen haweenka kalena waan soo marnay 3 quruu in baa saddex hayd ee noqonaysa haday tahay maartay kuwa aan haydka macnaha uu ka zuulay ama wali aan gaarin waxa la yiri waa 3 bilood 3 ashhur suuratu balaaq waa lagu sheegaya haddii xaamilo tahayna waxaa leeyahay xataa yabacna xamlahunna ilaa ay xamliga ka dhigaan ciddii ku jiraysaba haweenta marka laga dhintay 4 bilood iyo 10 habeen bay nafteeda la sugaysaa baa liyi faidaa balaqna hadday gaaraan ajalahunna ajalkoodii iyo waqtigii loo waqtiyeeyey hadday gaaraan oo ciddadii dhammaato falaa junaaxa calaykum wax junaaxa korkiina ma ahaan iyo xaraj iyo ismi ah fiimaa facalna fii anfusihinna waxay ka yeelaan macnaha naftooda oo بالمعروف oo macruuf ah oo haday guursadaan ama ay guur isu diyaariyaan oo isu qurxiyaan waxa soo dhan wax dhiba idin korkiina ma ahan bal wallahu allahna bima ta'maluna waxa sameeynaysan khabiirun wa rabbi khabiir oo xog og weeye oo waxba ka qarsoonay marka haweentaas mesela laga dhintay inta ay ciidada ku jirto 4 bilood iyo 10 habeen mesela guur ma la weydiin karo mesela weydiin karo aayad soo socota ka hadlay وها الله يرى سبحانه ولا جناح عليكم وح جناح كركنا ما أهان بني وحرج كركنا ما أهان فيما عرضتم به وهي أتكسر بيلتان أو تعريض كوحوي وهذا الكعان صريح أهين هذا الكواحد هذا تصريح يتعريض تصريح وهذا الكعب أو قيحان أو واحد دون إياه تعريض وحوي وهذا الكمارة اللي الدبول يوي ودولا أو قفك اللي درنسينها يقفك إن مارتي يعني هوجر أي فكرته هذه عدة كبح وكلاء والدرين ير والدرنسينها يبقى واحد يتعرض أو ابن عباس مر شرح وحوي يروح وران كرا ويروح وران كرا يعني أنا وان كران لها مارت إلى إنه وفتيه وين على حاجة صلى الله عليه وسلم وران كرا لكن أنا دون هنا جرس قفك له هيل يوحى صورا مبنى أنا معه ما والله بسوق هذه كرها التصريحة وهوينت laga dhintayna mid la baneynayo taariifka laakiin haweenka kale oo caadiga loo furay oo ciidada ku jirta iyada lagu soo qaadi karo taariif iyo tasriix midna maxaa yeelay markaas waxay ku jirtaa yaani ninkii hore maartay ciidada ugu jirta ciidadaas ninkaas oo xaq leh dhexdeedii uu soo celin karaa isaga biilka bixinaya marka ma baahan ba inuu ninka la hadlado ma banaan laakiin mid laga dhintay waxa la baneynayaa taariif hadal daboolan inuu qofku ku yiraahdo ilaahay wuxuu leeyahay wax junaaha korkiina ma aha ولا جناح عليكم فيما عرضتم به وهي أكثر بيبتان أو من خطبة النساء أو يعني دونس أو النساء هوانك يعني خطبة هي خطبة وكالدون تدي خطبة اللي روا خطبة الله خطبين يقعدوس على الله اللي خطبة مثل يدنا وجوردوني دوي هوانت وحلا ويدينها يجور كاوي أو أمسي أكلمتم وهي أتكقرتان في أنفسكم نفياشين واحد جناح كركنا معها معنا قفة نفسه ويحسد عن سنة يا قفة بعيدة سبحة الجور ويدي تاسنا وحوي اللي واحد جناح كركنا معها علم الله وأجازي أنكم إذنكم إنات ستذكرونهن أساس إنسان هويكا أو الله اللسان إلهي وأجهي بلي ولكن لا تواعدوهن لكنها طلب الله مننا ليرسرها نسي سرعة بلانها اللي لنا إن معناها يعني عسكر جوسن أو أدوى أديار أوساي تاسم إن وحلي مرنا بلانتها اللي لنا لي إلا أن تقولوا إن القرآن إنسان موية قولا معروفا هذا المعروف وهذا الشيء أنصر يعني تعريف كها
walaa taczimuuha go-aaminina cuqdata nikaaxi nikaaxa in la xirana oo gabadhii la guursado la meheriyana waxaa la yidhi ha go-aaminina xataa yabluqa alkitaabu ajalahu ilaa kitaabka uu gaaro ajalkiisa macnaha waqtiga ilaahay xadiday oo go-aamiye oo ilaahay ku qoray oo yidhi 4 bilood iyo 10 habeen ilaa ay go-aan oo ajalkaas la waqtiyey la gaaro ha nikaaxinina la yidhi yaan la guurin haddii macnaha la guuriyana nikaaxa baadil buu noqonaya maxaa yeele allah baa yidhi yatarabasna bianfusihina 4 ashhurin wa 10 biir waa inay naftooda la sugaan haddii la sugi weydo degdegto oo markaa la meheriyo meherka baadil weeye waa laga noqonaya waclamuu ogaada ana allaha allah inuu yaclam og yahay maa fii anfusikum waxa nafyaashiina ku jira allah inuu og yahayna ogaada bal oo allah shareecada idiin dirahaya oo wax idiin kala xadeynahayo wixii bannaan iyo wixii bannaan idiin kala sheegahaya waa rabbi nufuustiina og baa la yidhi oo qofkii shareecada khilaafa oo si sira u khilaafa iyo kii si calaaniye oo muuqaala u khilaafaba ilahay waa ogyahay faxdaruuhu allah ka digtoonaado ka baqaaliyo waclamuu ogaada ana allaha allah inuu yahay gafuurun rabbi asturid badan oo xaliimun oo dulqaal badan inuu yahay oo haddii wax idinka soo dhaceen gafa hore ahaa ilaahay ka quusanina ilaahay gafuurna waa yahay xaliimna waay oo allah usoo laabta way haddii gaf hore aad lahaydeen hadda kadibna waxa weeye allah ka baqa oo is ilaaliya oo faxdaruuhu baa marka aayadana waxaa laga qaadanaya waxaa ka mid ah haweenta haddii ay tahay haween guur soo martay macnaha in ninku uu la hadli karo oo weydiin karo guur laa junaaxa calaykum wax junaaxa korkiina ma ahaan in dallaqtum innisaa haddii aad haweenka furtaan maa lam tamasuuhunna idinkoo aan weli tamasuuhunna aan taaban haweenkaa aw tafriduu lahunna fariidatan ama aan u fard yeelin fariida oo meher u xadidin oo u cayimin taas waxa weye wax junaaxa korkiina ma ahaan bali marka junaaxa iyo xarajka la qaadayo waxa weeye qof baa masalan wuxuu dalbahayaa reerba wuxuu weydiinayaa gabadhii masalan u ogolaanahayaan waa siinayaan markii la siiyey oo gabadhii lagu meheriyo iyagoo weli aan meel iyo guri wada tegin ayaa waxaa soo baxaya waxaan la ogeyn macnaha isaga maanic ka aho guurkaas inuu ka baxo ku kalifaa ama ha ogaado gabadha diinteeda inay xun tahay ama waxyaabo kale ha ogaado ama maaragtay waxaa usoo baxaysa inuu ka noqdo gabadhiina masalan waa la meheriyey gurigii aabaheed iyo hooyadeed bayna weli joogta markaasoo kale waxa weye qofkii xaraj baa qalbigiisa waxu dareemahaya armaad ballan ka baxday ama dad xumaysigiis oranaya taabaa marka ilahay wuxuu leeyahy wax junaaxa korkiina ma ahan oo arrinta guurka sideeda waxay u baahan tahay deganaan iyo dad raali iska macnaa dad aan macnaha qalbiga xaggiis ka deganayn haddii la yihahdo ilaa arrintii waa gashay gal la yihahdo wax la sii soconayo ma aha ma waxaa ilaahay subxaana watacaala doonaya dadka iyagoo labadooduba ay raalli iska yihiin inay macnaha guurka usaataan ku noqdo baa la doonaya haddiiba marka ay wax yimaadaan maanica oo arrintaas ninkaa inuusan ku socon karin ay usoo baxdo ma noqonayo qof ballan ka baxay macnaha waa ka laaban karaa baa la waa ka noqon karaa oo waa ka duwan tahay ballamada kale arrinta guurka ah waa arrin weyn oo waxaa ka imaanaya maarata waxyaaba badan oo awlaad baa imaanaya waxa weeye waa nolol cusub oo maaragtay imaanaysa oo culus marka waa in si wanaagsan oo maaragtay kaamil ah oo labada qofba ay degan yihiin oo diyaar u yihiin waa inay ku galaan allah wuxuu yidhi subxaanahu wax junaax iyo xaraj korkiina ma ahaan haddii aad haweenka furtaan idinkoo weli aan taaban oo meherna oona u cayimin wamaticuuhunna yani waxna siiya baa layidhi oo wanaajiya oo mascada waxa weye waa wax wanaagga ahoo maalka ahoo la siinahay gabadhii wey cala almuusici kan qaniga ah waxaa korkiisa ah qadarahu qadarkiisa macnaha oo inuu qaninimadiisa wax ka bixiyo wey wa cala almuqtiri midka faqiirka ana waxaa korkiisa ah baa layidhi qadaruhu isagana qadarkiisa laga doonahaya oo midka faqiirka ana xoolo badan lama weydiinayo kan qaniga ana wax yar bixi la ohan maayo mid walba waxaa layidhi karaankiisa ha bixiyo mataacan raaxayn weeye oo bilmacruufi oo wanaag ah in gabadha la siiyo xaqan way ku tahay baa cala almuxsiniina dadka muuminiinta oo alla subxaana watacaala si wanaagsan u caabuda sida iyagoo arkaya uga baqaya kuwaa bay xaq ku tahay baa arrintaa maaragtay oo yani mataaca ah oo gabadha la siinayo marka tan waxa weeye waa gabadhii iyadoo aan gurigii laga wadin oo aan guri la geyn oo meherna aan loo magacaabin la furay waxaa kaloo halkaa ka muuqanaysa gabadha in la meherin karo iyadoo meherka aan la magacaabin oo taana waa banaanta haddii gabadhi inta la meheriyo iyadoo weli meher la magacaabin marka dambe xataa ninkii weliga ahaayo meherka magacaabi lahaaba uu dhinto ama yani waxay noqonaysaa markaas mehrul mithli wax la yihahdo gabdhaha la midkaa meherka la siiyo oo magaalada meesha muslimiinta wada joogo meherka ay qaataan oo gabdhaha laga bixiya laga bixinayaaba limaa kaabay xaq u yeelanaysaa wain dallaqtumuuhunna haddii si aad furtaan baa layidhi min qabli an tamasuuhunna idinku aan weli taaban oo gabadhi aan guri la geyn waqad faradtum lahunna fariidatan aadna u farad yeesheen oo u magacowdeen lahunna iyagii fariidatan fariido aad u farad yeesheen macnaha wax u waajibiseen oo meher u magacowdeen gurigeediina aan weli laga wadin oo tii hore waxay uga duwantaho keliya in midaan meher loo magacaabay layidhi waa lagu meheriye meherkan waa intaa marka waxay leedahay baa li hadii la furo fa nisfu maa farad waxaa laydinka doonayaa baa li bar
oo maa faratun ka mid a wixii aad farad yeesheen intii aad magacdoodeen nuskeed baad diibaysaan bal ilaa an yacfuuna inay iyagu cafiyaan mooye haweenka meherka iskale ay cafiyaan oo yidhahdaan barkiisana kama rabo maadaama ay gurina tegin oo guriga hooyada weli laga wadin oon caqdi keliya dhacay oo laisku meheriyey iyagana ay weli is arkin markaas uu dalaaq yimid waxay odhan kartaa barkaa xataa waa u daayay waa cafiyi kartaa maa aw yacfuwa ama uu cafiyo baa liyi alladii kii biyadihi gacantiisa ay ku jirtay baa liyi cuqdatu nikaaxi yani xarigga maaragtay ee xiridda maaragtay nikaax oo ninkii inuu cafiyo oo u kaamil yeelo oo intii u magacaabay iska wada dhiibo labadaa waa idin furantaa liyimaha laakiin sharci ahaan markii la isqabsado waxay leedahay gabadhaa bar laakiin waxaa idin furan baa liyi cafin baa idin furan gabadha inay cafiyo barkii xataa iska dayso ama ninkii cafiyo oo barkii xataa barkii kale ugu soo daro oo u kaamil yeelo wixii u magacaabay wa an tacfuu inaad cafinta qaadasaanna labadina dhinacba aqrabu waa ugu dhowdahay litaqwa taqwada oo sida ilaahay jecel yahay oo taqwada ah waxa weeye cafinta in lagu dadaalo oo qof walba oo kan kale aduusan cafin isagoo cafinta ku degdego maaha oo qofka cafinta ku ordaaya waxaa lii u dhow maara taqwadii wa an tacfuu aqrabu iyadaa u dhowaan badan baa litaqwa alla ka cabsigaba walaa tansawu lfadla hana ilaawinina baa liya alfadla yani wanaagga iyo yani dheeraadka iyo khayrka dhexdiina baynakum oo islaamnimada iyo walaaltinimada diinta oo lagu walaaloobay oo sharcada ilahay laysugu yimid arrintaasa waxa weye weyn ah ilaawinina mara haddii xataa guurkii burburay oo dadkii guurkii ansixi waayey macnaha walaaltinimadii diinta ahayd oo islaamka walaala lagu ahaa iyo xuquuqdii muslimiinta ka dhexaysay baa dhexdiinaa baa li marka fadliga ha ilaawinina ee cafinta ku dadaala baa li ina allaha allah bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun waa rabbi basiir oo arkayaal xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطaa waquumuu lilaahi qaanitiin ayaddana allah subxaana watacaala muuminiinta wuxuu ku amrahayaa inay salaada ilaaliyaan xaafiduu xisiya weeye oo ilaaliya waktigeeda ilaaliya arkaanteedii waajibaadkeeda ilaaliya xaafiduu cala asalawaati salaadaha ilaaliya waana salaadaha waxaa la sheegayaa almaktuubaad wey kuwa faradkaa wey wasalaati alwustaa iyo salaada dhexe ilaaliya salaada dhexe oo culimmada qaarkood ay yidhahdeen waxaa loo jeedaa salaatu alcasri qaarna ay yidhahdeen salaatu duhri qaar yidhahdeen salaatu alfajri marka mid kastaba ha ahaatee waa salaadaha ka mid ah shantoodaba waxaa la doonayaa in la ilaaliyo ilaahay salaadaha ilaaliya marka horeye salaatul wustana waa lasii adkeeyey oo salaada casarka waxa weye aad baa loo adkeynaya sida salaadaha oo faradkao dhan iyagoo adag oo waajibaadkaas o dhan in la ilaaliyo ilaahay isagoo amraya ayaa salaada casar waxaa kusoo arooreysa nusuus ninkii ka taga maarata camalkiisa inuu burahayo ninkii maaragtay salaada casarka ay dhaafto kaanamaa u tiraa maaratay biahlihi wa maalihi sidii ehelkiisi iyo maalkiisiiba inuu waayey oo kale inay tahay salaada cishaha salaada subaxna nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa asqalu salawaat cala almunaafiqiin waa kuwaas munaafiqiinta ugu culus walow yaclamuuna maa fiihi maa laatowhumaa walow xabwan hadday ogaan lahayeen fadliga ay ka heli lahayeenna gurgurasha ku imaan lahaayeen buu yidhi laakiin iyagaan rumaysnayn ilaahay wacdigiisii bayn rumaysnayn marka salaadaha ilaaliya baa layidhi waquumu u istaaga lilaahi allahna u istaaga qaanitiina idinkoo qaanitiin ah oo yani mudiiciin ah oo mutadaliliin ah oo saakitiin oo aamusan marka alamru bisalaad markaan la is amraayo waxay ku dhex jirtaa mawduucii ku saabsanaa guurka iyo yani ciddooyinka laga hadlaayey iyo furiinka iyo arrimahaas iyadoo lagu dhex jiro baa salaadii haddana lasoo dhexgeliyey laba aayadoo salaadii ka hadlaya haddana waxaa loo soo noqday arrimihii ciddadii iyo dalaaqii ayaa loo soo noqday waxaana weyaa layidhi waxaa laydinku barhayaa diinta ilaahay inay isku xiran tahay oo salaadeedii iyo axkaamteedii kaleba oo dhaqanka ahba inayn kala tegaynin kulligoodna cibaadaad yihiin oo allah subxaana watacaala wax xaggi ka yimid oo in la ilaaliyo kulligood u baahan oo xuduud in la ilaaliyo u baahan inay kulligood wada yihiin tan kale waxaa weeye marka arrimaha adduunyada lagu mashquulahayo oo arrimaha guurka iyo furiinka iyo ciddada iyo markii waxyaabaha la dhexgelayo oo mararka qaarkood u baahanaya hadallo iyo fadhiyo u baahanayo waa in salaadiina ay dad ilaalinaya layahay oo salaadii marna ayaan salaada yani faradka aan looga tegaynin umuuraha kale oo mucaamalaadkooda ka dhexdiisa ah marka salaada ilaahay subxaana watacaala muuminiinta sifaadkooda ku daray wuxuu yidhi qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun muuminiintu waa liibaaneen buu allah yidhi waa kuwa salaadooda dhexdeeda ku khushuucsan buy markaa mar kale haddana loo soo noqday sifaadka muuminiinta la tiriyeyba haddana waxaa la yidhi waaladiina hum calaa salawaatihim yuxaafiduun waa kuwa salaadahooda ilaalinhayaba marka muxaafadatu cala salawaat waxay ka mid tahay sifaatu lmu'miniin salaadii oo islaata oo waqtigeeda la ilaalin waayana calaamadaha nifaaq ay ka mid tahay oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam tilka salaatu lmunaafiq uu 3 jeer ku celiyey baa layidhi wuxuu yidhi waa ninka qoraxda ilaalsanahaya buu yidhi oo markay beena qarnay shaydaan ay gasho markaa istaagahaya buu yidhi fanaqara 4 bogsiinahaya buu
oo laa yadkurullaha fiiha ilaa qaliilan allahna wax yar ku xusaayo. marka waxay ka mid tahay macnaha salaada ilaalinteedu oo iyo xifdinta salaada waxa way sida qofku islaamkiisa u xifdinayo ayaa ka muuqanaysa. qofka salaadiisa dayacayana wixii kalena inuu dayaco ayuu u baahan tahay. saas Umar bin Khadaab u qori jiray nimanka umarada ah wuxuu oran jiray aham umurukum cindi as-salaa arrimina waxa ila weyn oran jiray ila muhiimsan salaada buu faman xafidaha ninka xifdiyo buu yiri fahuwa lima siwaha ahfad waxa kalena waa si xifdin badan yahay buu hadduu salaada ilaaliyo waman dayacaha kii salaada dayacana fahuwa lima siwaha adyac wixii kalena waa ka dayac badan. maxaa yeelay ninka Allah subhanahu wa ta'ala waqtigii uu la ballamay oo u yeeray ninka iimaan waaya oo ay ku culus tahay mar uu maqan yahay iyo mar uu soo dahaa ka dhaxeeya arrin kale ballamada kale bani'aadamkii iyo wixii kale xuquuq ahayd bani'aadamna maxaa u malaynaysaa macnaha iyo sheer uu ilaalinaya Allah subhanahu wa ta'ala baa duusan ka haybaysanin oo ballanta Allah uu san qiimeynay waxa kalena kama soo bixi karo. fa in khiftum haddii aad baqdaan baa Allah yiri oo khoof idin soo galo oo cadow aad ka baqdaan فالرجالا أو ركبانا يعني تكذا صلاة رجالا إنكم لغينا هي أو يعني لوك مرة هي أو ركبانا أما إنكم ركبانا أو صارن دابة صارن أما رتيجة صارن أما فرس صارن هي تكذا جنبل. حيا لوقت الحرب هو وقت قفك وصل اختيار لهين أو قبل ما نشوف دونا وينصل قبل ويشين ذكري وحلا يا مرة وينو أريه هي قبل حاجة ذي وكسر شيء ومالك الأوصل وقت الصلاة أو كوكلا. marka waxa la amrayaa rijaal oo rugbaan ay iska tukadaan. ibn Umar wuxuu yiri mustaqbil al-qiblata aw ghayr mustaqbiliha qiblada ama u jeeda ama u jeedinina salaadii waa la ka rabaa. marka saxaabadu waxay sheegeen dagaalkii Musaylim al-Kadhab markii lagu dagaalamay xadiiqatul mawt meesha loo baxshay oo markii hore la oran jiray xadiiqatul rahmaan Musaylim uu bixiyay sida isku yaqaanay rahmaan iyo yamaama. marka beertu ku raacaysan jiray waxay noqotay meeshii u dambeysay ku halaagsamay oo dadkiisina lagu laayay. marka beerta markii lagu dagaalamay waxay yiraahdeen salaada duhurkii waxa laga adimay darbiga kore kaaba la tukaday dagaalkii socda dagaal waxa weeye salaada casr laga adimay kaaba la tukaday nin walba qaabka marka uu tukanaya waana dagaalamahayaan waana tukanaya oo qofku waxa weeye faraskiisii kor saaran yahay ku tukanaya ama kii dhulka marayayna soo dhulka maraya uu tukanaya. waxa kaloo siirada la wariyay saxaabiga Abdullah ibn Unays la oran jiray oo nabiga u diray alayhi salaatu wasalaam inuu soo dilo ninkii la oran jiray Khalid ibn Sufyan al-Hudali reer Hudayl soo ururinayay rabeen soo weerarada magaalada Madiina. waa rasuulku u diray Abdullah ibn Unays oo u diray oo wuxuu yiri ninka soo dil wuxuu yiri ninka ay tilmaam calaamadiisa ii sheegtay wuxuu yiri markaad aragto baqaysaa wuxuuna yiri waxaan ogaabay yiri anigu nimanka ma baqi jirin buu waan yaabay buu markuu meeshii tagay oo qabiilada dhex galayna ninkii waa gar aragiisa markuu arkay wuxuu yiri waan baqay. marka ninkii waa Israa'il wuxuu sheegtay qabiilada Khuzaa oo sheegtay rasuulkaan kula darmo wuxuu yiri intasib ila Khuzaa oo nasr sheegay Khuzaa hay buu waxaan maqlay buu yiri ciidamada aad ururinay sidoo waxaan rabaa Maxamed inaan ku raaco lacala inaan qaniimo helo sidoo isku raaceen markay iyagu jibka maraya waxa salaadii gaabatay gali markaa saxaabigi waxa la soo soconayo tukaday gali gaalkina ma dareemin markii meesha wada tagana waa tuu dilay oo madaxa ka soo gooyay. marka muslimiintu markay baqaan oo khawf u jiro waa sidaa farijaalan oo rukbaanan waxa kaloo macnaha daabada ku lagu tukan karaa markii salaadu sunno tahay qofka musaafir yahay soo ka degan kara ba markaana waxa sunno ka mid inuu daabada meel allaale meesha ula jeesto inuu iska raaco iska tukado sida nabiga laga wariyay alayhi salaatu wasalaam aan ku soo marnay aayadii ahayd fa inama tawallu fasama wajhullah. waxa kaloo la wariyay mar roob daahiyay oo dhulka dhan biyo ahaana nabiga alayhi salaatu wasalaam saxaabadii oo awr saaran inuu shafay oo daabadahooda korkooda ay ku tukadeen isaguna u hormaray oo salaad markaa farada ay tukadeen oo jamaacad ku tukadeen iyo daabadii wada saaran. markii la baqo waxa la yiri fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idha amintum hadad amin noqotaan oo nabad ah heshaan oo qoofka Ilaahay idinka qaado fadhkurullaha Allah xusaba la yiri kama allamakum sidoo idin baray ma lam takunu ta'lamuna waxidina hore aqoon jirin oo dhikriga Allah idin baray oo salaada waxa weeye dhikri Allah weeye oo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wa aqimis salata li dhikri salaada waxa loo sojinayaa loo istaajinayaa waxa weeye loo ogahayaa waa lidikri Ilaahi. marka dhikriga Allah idin baray oo Ilaahi subhanahu wa ta'ala uu idinka hore u ogeyn uu idin baray waxa la yiri macna ilaaliyo. والذين يتوفون منكم كوينا لو أفسنايو oo idinkeeda kamid ah ويذرون oo ka tagaya azwaajan haween ka tagaya wasiyatan li azwaajihim dardaaran fa usugnaaday li azwaajihim haweenkooda ama u dardaarma haweenkaas mataacan ila al-hawl wasiyo u dardaarma oo haweenkaas oo ah mataacan ila al-hawl
raaxayn oo ilal xawli ilaa xawlka hal sano inay halkaas joogaan oo ixdaad ay ku jiraan hayra ikhraajin iyagoo aan ahayn kuwo ikhraajin la saarahayo la bixinayo oo lama bixin karo wey macnaheed fa in kharajna hadday baxaan oo waqtiga u dhammaado falaa junaaxa calaykum korkiina ismi iyo xaraj ma aha fii maa facalna fii anfusihinna waxay naftooda ku sameeyaan oo guur iyo yani guur inay isu qurxiyaan oo min macruufin oo macruuf oo shareecada allah waafaqsan wallaahu allahna casiizun xakiimun waa rabbi casiiz ah oo wixii xuduudda ilaahay jebiya allah waxa weye waa ka argoosanaya xakiim weeye ilahay wuxuu jibeeyena xakiim buu ku kusuubiyey aayaddan marka waa aaya oo mansuukha oo la nasakhay oo waxaa nasakday aayaddan soo marnay yatarabasna bianfusihinna 4 ashhurin wa 10 taasaa ka dambeysay markii hore xawl kaamila bay ahayd ciddadu haweenta laga dhintay kadibna waxaa laga dhigay 4 bilood iyo 10 habeen carabtii hore maar qabla islaamna waxaa la yidhi iyadana xawlkaasi yaqaaneen laakiin haweenta ay dullayn jireen oo haweenta laga dhintay waxay amri jireen inay meel yani waaba yar ay meel uga dhistaan carfasha in halkaa gasho oo halkaa isaga jirto hal sano ayaan ogadeeda biyo taabsiin oo maa halkaa ku qoranto hal sano kadib ay markaa meesha kasoo bixi jirtay bale laakiin islaamku markii uu xawl ka dhigahayey ciddada wuxuu amrayay gabadhii inay tukato oo maaragtay nadaafadda korkeeda waa amran tahay mar walbaba cibaadooyin baaba laga doonaya haddana waa lasii fududeeyey oo xawlkii waaba laga bedelay waxaa laga dhigay 4 ashhurin wa 10 4 bilood iyo 10 habeen baa laga dhigay haddii mar waqtigaa dhammaadana waxaa la yidhi wax xaraja korkiina ma ahaan waxay naftooda ku sameeyaan walilmudallaqaati waxaa u sugnaaday baa li haweenka mudallaqaadka ah oo la furay mataacun raaxayn baa u sugnaatay baa li bilmacruufi macruuf ah oo in wax la siiyo oo mataac adduunyaha la siiyo ayaa sunno ah baa la yidhi oo laydin farhayaaba ilaahay leeyahy walilmudallaqaati mataacun bilmacruufi xaqan bay ku tahay iyo waajib cala almuttaqiina dadka allah ka baqa ayaa lagu fardi yeelahayaabaa marka maadaama aayaddan ay caam ka dhigto walilmudallaqaati ay la yidhi ayaa markaa culimmada qaar waxay leeyihin waxaa wanaagsanba marka haween walboo la furaba in wax la siiyo oo la wanaajiyo ayaa wanaagsan ee kuma koobna keliya midii aan meher loo magacaabin taas keliya ma aha kadalika sidaabuu yubayinu allahu cadaynahayaa allah lakum idinka idinkugu cadaynaya aayaati aayadihiisa idinkugu cadaynahayaa lacalakum tacqiluuna si aad caqli u yeelataan wax u garataan shareecada allah caqli baa lagu yeeshaa waa xikmad wax walbo booskooda la dhigahayo oo makaankiisa la dhigayo wey qofka marka xikmadda asiiba caqli buu yeelanayaa dadka inuu ka caqli badan yahay baa loo malaynaya sababtuna wax kale maahane waxa weye xikmaddii ilaahay xaggii ka timi ayuu ilaaliyey qofkii waxa weye cilmigaa ka maqan yahay oo aayadaha ilaahay ka maqan yihiinna xakiim noqon mayo si kasta hadduu iskaga raadraadiyo xikmad inuu ku hadlo ama ku dhaqmo xikmad ma asiibayo hadduu si walba maarata ugu dadaalo caadil inuu ahaadana caadil ma noqon karo maxaa yeele cadligu wuxuu ku jira aayadaha allah wey watamad kalimatu rabbika sidqan wa cadlan bali sidoo kale caqliga waxaa lagu yeelanayaa waa aayadaha allah runta iyo cadaaladuna waxay ku jiraan bali aayadaha allah wey alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim yani ma aragtay wey alam taclam bay la macno tahay bali oo aragtida waxaa weye ru'yatulqalbi iyo ru'yatulcayn baa jirta aragtida qalbiga iyo aragtida oo indhaha ah hadda waxaa la sheegayaa aragtida qalbiga ah weye alam tara yani alam taclam ma ogtahay bali ila aladiina kuwii kharajuu baxay min diyaarihim guryahoodii ka baxay wahum iyagoo ah bali uluufun kumanaan iyagoo ah xadar almowti yani baqdin ay ka baqahayaan oo ay ka digtoon yihiin almowti dhimashadii faqaala lahum markaa uu ku yidhi allahu allah baa ku yidhi muutuu dhinta buu yidhi uma bacdina axyaahum allah baa noleeyey baa iyagii yani arrintaa waxaa la yidhi macnaha ma og tahay weye oo waa la barhayaa arrintaa inay jirtay oo taariikhda bani aadamka inay soo martay xaadiso sidaas ayuu allah subxaana watacaala barhaya in allaha allahna laduu fadlin cala annaasi waa rabbi fadli yani u tara oo khayr iyo dheeraad u tara cala annaasi dadkii walaakina aktara annaasi laakiin dadkii intiisa badan laa yashkuruuna shukrin maayaan bali arrintan marka waxaa la yidhi waa qiso dhacday dadkii ummadihii hore maarata oo ka horreysay nebi maxamed sala allahu alay wasalam dadkii hore bani israa'iil ka dhacday baa la yidhahdaa dad waxay ahaayeen baa la yidhi deegaankoodii o dhan hal mar ka guuray oo iswaafaqay oo yani qaxay waxaa qisinahayana laba arrinba waa laleeyahay mid waxaa weye inay ka carareen maaragtay daacuunkii oo daacuun meel lagu baaba-ahayo lagu jirinayo inay ka carareen intay u nabad galaan dhul macnaha jirada ayan ka jirin ay u carareen marka meesha marka tageen ilahay amarkiisa u yimi hal mar dhinta la yidhi oo iyagi wax lagu barahayey ajalkoodii waxaa la yidhi waxbaa ka dhimanaa oo gadaal waa la nooleeyey waqti bay noolaayeen laakiin waxaa la yidhi ilaahay subxaana watacaala baa amwaad ka dhigay markay baaba-een baa haddana lasoo nooleeyey waxaa kaloo la yidhi waxay ka cararhayeen jihaad iyo dagaal maaragtay oo xaq ah ayay ka cararhayeen markaada waxay jirahayeen aad nabad gasheen dhul foga aada
sidaa markaa meesha ay tageen oo nafta ay la cararayeen baa nafta ka wada qaaday markaa hal mar waxa way wada baaba'een markii lafa noqdeen baa leeyahay haddana ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo nooleeyay sidaa baa leeyahay soo nooleyntoodana waxaa leedahay sabab waxaa ahayd balan nebi allah baa maaragtay ilaa allah bariyey in ilaahay soo nooleeyo sidaas riwaayadaasaa la warinaya marka wax kastaba ha ahaato faasiisheeda hoose si kastaba ha ahaatee waxaa aayadaha laga qaadanaya inay jireen qoom macnaha cararay mar ayagoo naftooda badbaadiye isleh marka ilaahay subxaana wa tacaala uu iyaga amwaad ka dhigay haddana uu soo nooleeyey oo taana loogu talagalay inaan marna bani aadamku inay rumeeyaan inaan qadarta ilaahay laga carari karin oo waxaa la yihahdaa laa yunji xadarun min qadar xadar baa layihahdaa qadar wax kama taro oo kama badbaadin karo taxadar kama badbaadin karo marka arrin walba oo marka xaq ah oo naftaada khatar gelinaya inaan laga cararin baa markaa la isfarhayaa oo haddaad istiraahid si aadan u jihaadin maaragtay waddan nabada aad haddaad istiraahid ilaahay meesha markaas nafta kaa qaadi karaa haddaad istiraahid daacuunka nebigu wuxuu yihi alayhi salatu wasalaam haddii magaalada sultaan ka dhacana ha ka bixinina magaalo kale hadduu ka dhacana ha gelinina buu yidhi meeshiina ka jooga daacuunka marka sharciga islaamka saas uu amrahaya marka haddii magaaladaadii uu ka dhacay amarkii aad khilaafsid oo markaas carartidna waxa weeyaan sidoo kale meeshii nabadda ahayd markaas insid ilaahay nafta waa ka qaadi karaa marka waajibaadka allah ilaaliya weeye oo naftiina ilaalinteedu in ku bixin inaad shareecada allah aada khilaaftaan shareecada allah inaad la khilaaftaan laakiin taxadarka waxa weeye adoo aan aayadaha ilaahay khilaafayn taxadarka kale waa bannaan yahay bal waa la is amrahayaa qofku inuu aayadaha ilaahay ilaaliyo waxaa ka mid ah aayadihii waxaa ka mid ah aayado ku amrahaya taxadarkii marka waxaa ka mid oo kale aayadda ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wakhuduu xidrakum taxadarkiina yani wasa baa ilahay yidhi oo haysta oo markasta taxadarkiina qaba baa layidhi muslimiin gaalada markaad salaato roobka tukanaysaan waxaa layidhi yani hubkiina idinkoo labisan tukadaa laleeyahay haddii roob uu maarata jirana hubka waa dhigaysaan baa layidhi laakiin wakhuduu xidrakum taxadarkiinana ka qaba gaaladadaadi gaalada waxay jecel yihiin baa layidhi inay qafle idinka helaan oo hal mar idin kediyaan idin baabi'iyaan sidaa daraaddeed taxadarkiina qaba baa laleeyahay nabiga waxaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam munaafiqiinta la baray waxaa la yidhi hum alcaduwu faxdirhum iyagaa cadow ah baa layidhi muslimiin bay sheeganayaan waa kula socdaan laakiin waa cadow ee waxaa la yidhi faxdirhum ka digtoonowbay marka digtoonada sidaas asbaabtay ka mid tahay in la ilaaliyaba weye oo waxa weye haddii la ilaaliyo aayado la ilaalinayo wey laakiin taxadarka maaragtay qaladkaa oo aan la ogolayn oo qolada hadda ay sameeyeen waxa weeye wax ilaahay uu amray oo la jebinahayo si nafta loo badbaadiyo taa wey midda khatarta amaarta ilahay raallay ka ahay aayadan baana kugu filan in la iska daayo oo arrintaas laga cararo waxaa kaloo la sheegaa macnaha hadda waxaa jira dad la yihahdo caqlaaniyiin oo waxay yidhahdaan wax allaale wixii caqliga bani aadamka maaragtay ku adag oo dhan oan geli karin qur-aanka maka rumaynayno ee waa ta'wiilinayna bay leeyihin sida qur-aanka u sheegay uma qaadanayo marka aayaddan waxay ka mid tahay aayadaha ay inkireen bay ka mid tahay waxay leeyihiin ma dhici karto in mujtamac dhan oo guurahaya oo raggoodii haweenkoodii carruurtoodii odayaashoodii hal mar xag ilahay inta la yihahdo dhinta la yihahdo haddana soo noolaada la yihahdo waxay leeyihin caqligal maahan bay yidhahdeen marka caqligoodii bay wax ku miisaamahay caqligalna waata waxa weye dadkaan xaggee ka yimaadeen yaa abuuray allah subxana wa tacala waa abuuray wixii dhintay bani aadam ahaay o dhan ilaa nebi aadamna waxaaba la rumaysan yahayba ilaahay hal mar in maaragtay ahaada inta la yihahdo ahaanhayaan oo hal mar seexa waaxid inta loo qayliyo ay kulligood noqonayaan faidaahum qiyaamu yanduruun marka maxaa qayb yaroo bani aadam ka mid ah bani aadamkii o dhan oo wada dhintay intaasoo qarni baa waa la doonaya ilahay wuxuu noo sheegayaa in hal mar lasoo nooleynayo in kaanad ilaa seexatan waaxidatan bay hal seexay ahayd baa ilaahay faidaahum jamiicun ladaynaa muxdaruun mise kulligood ba allah agtiga muxdariin ku yihiin kuwa xaadiroo joogay noqonaya fainamaa hiya zajratun waaxidatun faidaahum yanduruun waa zajra waaxida baa li hal mar baa loo qaylinaya faidaahum yanduruuna mise waxbay ba arkahayaan bali yani wayowma yaxshuruhum kaan lam yalbasuu ilaa saacatan min nahaar waxay u malaynahayaan hal sac keliya inay xabaalnaayeen yatacaarafuuna baynahum bali was aqoonsanhayaan bali isgaranayaan hebel kuwaakan iyo hebel sokan ma ahan bay odhanayaan waa dadkii quruun dhinsanaa maarta oo amwaadka ahaa saasa ilaahay noo sheegaya marka caqliga bani aadamka yani waa geli kartaa maxaa yeelay qiyaamahaba caqliga bani aadamka waa geli karaa waana la rumaysan yahay waana xaq arrin ilaahay sheegay allahna lagama yani run badna waman asdaqu min allahi xadiisan bu ilahay yidhi allah ka run badan waman asdaqu min allahi qiilan waana wacdi ilaahay qaaday ilahina wuxuu yihi waman awfaa bicahdi min allahi ya allah ka oofin badan bacahdigiis cidnahu marka waxay kaloo inkireen aayadahan ka hadlaya masalan qoomkii la halaagay oo asxaabulfiil oo shimbiraha badda xaggeeda uga yimaadeen waxay yidhahdeen halkaasna macquul maahan ee dadka ciidanka cudur kala ku dhacay sida maaragtay furuq iyo maaragtay jadeeco iyo waxbaa ku yimid oo baabi'iyey laakiin ma ahan bay yidhahdeen shimbiro inay badda ka yimaadeen oo dhagax sida oo ciidankaas keliya halaagahaya marka kuwa waxa weye iyagaa maaragtay qaldan oo fahamka nusuusta ka qaba caqlaaniyiin baa la yidhahdaa waa fikrado jira wey hadda casrigaan la helahayo qaar qur-aanka fasiraayo ama ku hadlaayo oo waxaa aaminsan xadiiska odhanaysoo kale nebi ciise waa soo degi doonaa waa inkireen waxyaaba badan oo saas inkireen waxay leeyihin caqliga bani aadamka ma geli karaan laakiin caqliga bani aadamka geli karaan ilahay baa calaa kulli shayin qadiir baaba la rumeeyey wax walbaba allah waa mid kara baa la rumaysay
waqaatiluu fii sabiilillaahi u dagaalama yani fii sabiilillaahi jidka allah oo waddada allah waxa weeye islaamnimada weeye iyo shareecada allah iyo kitaabka allah inuu sare maro oo noqdo midka talinaya oo nolosha biniaadam ka talinaya dadkaa hawada ku socdo o dhan oo dawaaqiidka ah oo hawadooda ku xukumahaya ama hawa maaragtay gaala hawadeed iyo shareecadeed soo qaatay oo banaadam ku hogaaminaya waxaasoo dhan ilahay wuxuu doonaya inayn talin marka inayn talin oo waxa weeye addoommo noqdaan oo shareecada ilahay ku fulayso iyago caqiido kastaa ha rumaysnaadaan laakiin talada iyo nidaamka iyo dowladnimada ilahay wuxuu doonayaa kitaabkiis keliya inuu lahaado sidaa daraaddeed qofka u dagaalamahaya sida kelmadda ilahay u kormarto kaabaa mujaahid la yihahdaa rasuulka waxaa la yidhi alayhi salatu wasalaam ninbaa wax u dagaalamaa geesinimo ninbaa wax u dagaalamaa maaragtay sumcad iyo halagaa sheego ninbaa wax u dagaalamaa xamiyo u dagaalamaa qoomkaaga difaac oo qoomkaaga ayaan laga adkaan buu u dagaalamaa ee wuxuu yidhi ayu dalik fii sabiilillahi baa keebaa maaragtay ilaahay waddadiisa u dagaalamaya su wuxuu yidhi man qaatala litakuuna kalimatullahi alculyaa fahuwa fii sabiilillah kan u dagaalamahaya buu yidhi sida kelmadda allah u kormari lahayd kaas keliya wuxuu yahay fii sabiilillahi marka hadafka maarata qofka u dagaalamaya fii sabiilillahi waa midka doonaya amarka ilahi inuu ka kormaro amarada maaragtay ahlu baadilka iyo dawaaqiid kaabaa wuxuu yahay mujaahid ah macana marka maadaama aan taxadar uusan qofna waxtar hayn oo haddii naftaan lala cararo naftaan walbaba maaragtay allah subxana watacala la hortegiis dagaalama liyi marka waqaatiluu fii sabiilillahi u dagaalama baa liyi fii sabiilillahi waclamuu ogaada ana allaha allah inuu yahay samiicun rabbi samiic ah oo maqlahaya maaragtay aqwaashiina iyo arrimihiin o dhan ilaahay subxana watacaala mid og inuu yahay caliim ah axwaashiina hoosoo dhanna uu ogyahay waxaa daahirinaysaan waxaa muujinaysaanba inuu ogyahayna ogaada mar walba aayadaha tacqiibaadka la raacinayo allah waa casiiz xakiim ah iyo waa samiic caliim waxaa la doonaya mar walba qalbiga inuu qofku hayo allah subxana watacaala oo markaad wax fulinaysid oo diinta ilaahay aad ilaalinaysa aad samaynaysid waa inaad ogtahay allah inuu bikulli shayin caliim yahay oo samiicun caliim yahay oo caliim bidaati suduur yahay saasaad u ogaanaysaa arrintan muraaqaba baa la yihahdaa waxay kuu bixinaysaa allah subxaana watacaala inaad aada uga baqdid oo wax walba u samaysid sida ilaahay subxana watacaala doonaya man da ladii man kee waya baa liyi daa kaa aladii yuqridu deyminaya baa liyi allah yani man da ladii kee waya kaa yuqridu oo deyminaya allah deyminaya qardan xasanan yani deyn xasanan wanaagsan fa yudaacifahu markaa allahna u jibaaro lahu isaga adcaafan jibaarid baa liyi kasiiratan badan wallaahu allah baana yaqbidu yareeya baa liyi risqiga addoommada ku yareeya wayabsudu una maaragtay furaa oo u ballaariya wa ilayhi turjacuuna isagana xaggii laydin celinayaaba marka deyntan la sheegahayo waxa weeye ilaahay subxana watacaala waa qani addoomadiisa waxba uma baahna in allaha laganiyun cani ilcaalamiin buu ilahay yidhi allaha caalamka o dhan qani buu ka yahay yaa ayuha nnaasu dad yahow antum alfuqaraau ila allahi idinkaas faqiira baa li allah u baahan wallahu huwa alganiyu alxamiidu allahna waa qaniga maarata xamiidka ah laakiin waxa weye qardigan waxa weye ilaahay subxana watacaala addoommadii ayuu imtixaamaya addoonka waxa weye laba arrimood baa lagu imtixaamay baa layidhi waxaa lagu imtixaamay marka hore maal baa naf baa la geliyey baa layidhi naftaas allah xaggiiba uga timid isagoo xayiya ba is arkay xayaatada min allahi bay ka timid xayaatadaas waxaa la yidhi yani uhur baa la yidhi ilaahay dariiqiisa waxaadna rumaysaa allihii marka hore xayaatada ku geliyey xayaatada inuu kusoo celinayo oo nolol baaqiya oo aan ka dhimanayn haddana ku geenayo oo daartan daar ka wanaagsan inuu ku geenayo daartan ba sidaas ku keenay adiga ikhtiyaarkaaga talada laguma keenin lagulama tagsan haddana waxa weye ilaahay subxana watacala wuxuu geenayaa daar wanaagsan oo lagu waarahayo nicmadu ayn ka go-an markaabaa dadka saas marka ilahay ula hadlay waxaa la helayaa qaar bakiilaya marka oo naftoodii la baqaayo inay dhintaan oo ka walwalahaya maarata waxyaaba kaloo la xiriiro adduunyaha oo ballanta ilaahay subxana watacaala iyo beecadaas iyo ballantaas allah iyo addoommada ka dhexeeya jebinayaa jira waxaa kaloo lagu imtixaamay addoommada ilaahay maal buu u dhiibay risqi baa loo dhiibay risqigii markii loo dhiibay oo minallaahi uu risqiga ka yimid ba waxaa la yidhi haddana risqiga aan kuu dhiibay bixi baa layidhi sidaa iyo sidaa ku bixi baa layidhi sidaa iyo sidaa ku bixi baa layidhi markaaba waxay qaar bakiilhayaan waxay leeyihin see u noolaanayn haddaan bixinin markii hore yaa idin siiyey allah baa ku abuuray waa ku ogyahay isagana maalkan ku dhibay bixi buuna ku leeyahy waddada ilahay ku bixi kaa qof waxaa bakiilhayaabaan haa antum haaulaahi tudcuuna litunfiquu fii sabiilillahi fa minkum man yabkhal baa ilahi qaar baa bakiilhayaabaan waxaa laydinku yeerayaa allah dirti wax u bixiya markaabaa qaarkiin bakiilhayaabaan markaas marka arrimuhu marka waa ibtilaa ilaahay wuxuu yidhi walilaahi khazaa'inu samaawaati waalardi allah khasnadaha samaawaadka arlada o dhan buu ilaahay haystaa walaakina almunaafiqiina laa yafqahuuna munaafiqiinta aan fahmayn dali munaafiqiinta way kuwa shakiyahayo marka ilaahay wuxuu leeyahay man da ladii yuqridu llaha qardan xasanan marka qardigaa iyo deyntaas wanaagsan oo addoonka laga doonaya waxa weeye in maalka ilaahay u dhiibay fii sabiilillahi inuu bixiyo waxaa ka dhalanhaya fa yudaacifahu lahu ilaahay baa u jibaarahaya adcaafan jibaarid badan baa layidhi kasiiratan wallaahu allah baana yaqbidu yareeya baa layidhi risqiga addoommada ku yareeya wayabsudu una maaragtay furaa oo u ballaariya wa ilayhi turjacuuna isagana xaggii laydin celinayaaba arrintan ah addoommada qaarna adduunyada lagu yaraynayo qaarna ilaahay uu fidinayana waxaa laleeyahay waa ibtilaa maarata ilaahay wuxuu rabaa addoommadiisii
qaarna inay saabiriin ahaadaan oo sabar ilaahay ku caabudaan qaarna inay shukrin ku caabudaan baa la doonaya ilaahay subxaana watacaala baan arrintaa yeelay baa layihahdaa qofna laguma ceebayn karo kii waxa weye ilaahay u sahlay u fudeeyena waa hadduuba shaakir noqdo waa nin wanaagsan oo ilaahay sidii la doonayay maaragtay u caabuday kii maaragtay ilaahay ku yareeyena hadduu saabir noqdo isaguna waa nin wanaagsan oo yani ilaahay subxana wataala siduu doonayay yani u caabudayo wey labadoodaba waxa weye waa isku mid baa layihahdaa xagga fadliga oo cumar bin khadaab baa laga wariyaa wuxuu yidhi hadday ahaan lahaayeen laba rati buu yidhi midkii iisa horbanaan raaci lahaa kan kale uma yarteen buu yimaa haddii ilaahay igu imtixaamay shiddo iyo faqri iyana waa sabri lahaaba ka wadaa haddii ilaahay nicmo iyo maarata caafimaad iyo adduunyo igu imtixaamana shaakir baa noqon lahaa waddadii ilahay aan ku baabi'in lahaa buu leeyahy إعداد وتركيب الصور الفقير إلى الله أكرم عبد الفتاح علي فما أغضأت فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله وشيخ البرهان